laakiin xukunkii fashilmay wiil taageeray ee dhahay aniga farmaajo cid aan ma aqoonsan mana aaminsani wiil agoonyar inuu booska u waayo agoo abgaal iyo mudulud wax ay marna aqbali karaan ma waa xukun waa go'aan aan ku dhiirinayo saaxiibayaal meel walbo joogtaan iyo si walbo ii daawanaysaan galab wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni bandhiga galabta waxa miiska saaran ama kawaanka saaran xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana dacwo ka ah oo ku dhagan waliba beesha mudullood hadalhayntan waxay soo jirtay tan iyo intii uu magacaabista uu sameeyay xafiiskiisa laakiin shalay waxa afka furtay Muxudiin Darbaweyne oo aan anigu aqaano halyeyga beesha mudullood ee qarnigan waay Darbaweyne ayaa hadal dhameeyay murtidiisii xigmadiisii sharaftiisii waay aragnimadiisii aan se waxa rabaa inaan biyo raacis ku daro oo malaayiin Soomaaliya oo mudulloodka u horeeyaana oo muuqaalkan gaaro aad share gareysaan oo like saartaan oo aad wareejisaan fariintan waxay ku socotaa si toos ah xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaare intaan ku gardhigan waxaan rabaa Soomaali weyn halkan ku jirta inaan iyagana u gardhiganno marka hore waxaan rabaa Soomaali weyn xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu leeyahay 14 agaasime ayuu leeyahay Soomaali weyn muuqaalkan waxaan rajeynayaa cid kasta oo damiir leh oo dadnimo ay ku jirto in ay u qaado si lamida sida bari reerkaaga aan uga hadli lahaa hadii dulmi lagu sameeyo waxyaabaha qaar ee dadka ra'iisul wasaaraha ku fikirka ah ama ku reerka ah ay ka dhiganayaan qiil wax la qaadan karana maaha Soomaaliya marka xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu leeyahay 14 agaasimo leeyahay Soomaalida u gardhiganaya ra'iisul wasaaraha u gardhiganaya milkiilihiisa cusub u gardhiganaya dad ma yaqaana iska kaftamaya Dr. Cabdinuur Maxamed waa milkiile madaxweyne aad maqli jirtay milkiilaha ra'iisul wasaaraha waayid Cabdinuur mar kale idin bari doona iyo wax badan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ku saabsan anigu ra'iisul wasaaraha waa taageersanahay ma dhaliilaayo ma caynaayo waa ra'iisul wasaare ugu fiicnaa ee la soo madaxweyne uu magacaabo waa midkii ugu taageeraha badnaa waliba beel aan jeclahay oo absama liira waliba gaar aan ogaadeen niman liira oo aan aad u jeclahay ayuu ka dhashay marka laakiin shakhsigu ma qaldami karaa waa qaldami karaa bini aadan iyo qalad inta isku jiraan ilaahay waa yaqaanaa anaguna waa naqaanaa marka qaladka iyo taageerada waa labo 15 May laga taqalusay lama la gowracay waxa la yiraahdaa siyaasiga aan taageersanahay ma qaldami karo xukunkii fashilmay ayuu raactaa dimuqraadiyad Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la waaya ra'iisul wasaare xafiiskaadu wuxuu leeyahay 14 agaasime Soomaaliya way maqleysaan hal nin oo mudullood sheegto oo ataqaana mudullood idin sharaxi maayo saameyntooda magaalada Muqdisho Soomaaliya gobolka iyo caalamka intiisa kalaba idin sharaxi maayo 14 agaasime inaanu hal nin oo mudullood ku jirin Soomaaliya ma cadaalad ba ra'iisul wasaare bal adigu kaadi xafiiskaada kuwa shaqeeya ha u kaadiyaan Soomaalida ayaan weydiinayaa comment ayaan ku weydiinayaa haddii jawaabtaadu maya tahay share garee like saar muuqaalkan wareeji waa cadaalad bari adigu kugu imaan doonto hawiye special hawiya kala oo iyagana xafiiska ka maqan waa ka hadli doonaa maalintooda aniga hadda badaan muujadana ka xasan in 14 agaasime oo hal nin oo mudulloodkaad aragtay oo xamar jooga oo sidoo Darbaweyne sheegay maanta hadda dhahay 30,000 oo wiil oo askar ay keen ku keeni kara 30 milyan keen hadda la dhahay ku keeni kara inaanu hal agaasimo ku lahayn ra'iisul wasaare waa ceeb Soomaali weyn u soo hoyto waa magacaabis laga dareemayo dulmi iyo in arrimo kale ay ku hoos jiraan oo aan hadda carabaabi ma ku jiraan hawiye kala way ku jiraan de hawiyaha kale oo ka maqan haday maqnaan lahayn oo hadli lahayn
هذا سمدلود واي وعسى عيب كدرن أفري طبعا أجاسمي عيب كلو كدرها جرتوا عن قرينا يعني أنا وحمر بانكين أنا وحن صادوا في حفيز كرئيس الوزراء أنتوا سنفريسن هبين كيل لما جعابي هبين كوعي حمر كسر تجي ما دام دد بدن اللي بعنا وزير الشعب كل قليين أنا وحن قرأوا صدقين عن دد كاس عن كم من دغنا وقتي عن كل رئيس الوزراء ويا هي حفيز كرئيس الوزراء شقالها حفيز كرئيس الوزراء ما أجاسم بيال معها شقالها حفيز كرئيس الوزراء وعيككوا بيهين سدح بقول تضباطني له غفض في عن هذا الكي يقولون جبر يويل ويل هاي يا أبى أنت الصومالي شو متبع لي هيا سدح بقول يتضباطن يله شقالة أي حفيز كرئيس الوزراء كوهر الرسم imagine مدلود شقالو ما يقول كلية ما تقانن أنتوا كلية مقياس كرتا صغر haddaan kuu sheego waa naxaysaaye bal adiga qiyaas fiican oo qalbigaada u roon iska soo qor 376 marka lagu sheego adigu waxaad soo qoraysaa hadda ma 76 bay leeyihiin Soomaalida kulba ma leh ma 100 bay leeyihiin ma half bay leeyihiin ma waxaad isleedahay 60 bay leeyihiin war hoos aa u dhignay cadaalad darro sameeyay ra'iisul wasaaraha ma konton bay leeyihiin ma laha مدلود حفيز كا رئيس الوزراء شقالها حفيز كا رئيس الوزراء مدلود وحي كليه له سدح بقولي طلباتك لو مكره حمل على عشور بحيه سيدو دربوين الشاقي ديكتاتور هدو يمادو ادا ساري كرا قرن هدو يمادو ادا كيني كرا مجرتي انت صحيت كل قيبسن كرت مجرتو لح قفا شقالها حفيز كا رئيس الوزراء كليه أفر يتمن أجاسمه ورئيس الوزراء ولا حفيز الوزراء ولا هل أجاسمه كملهم وعيب ولي بالحراب لا أفر يتمن كأجاسمه دان إلي شيء كل جود دارو ده هاي حسن على غيره كبلاه إلا يا أفر يتمن كأجاسمه دارو ده هاي حسن غير ولا قال هاللي ما وقتك أسامح واي دجال سياسة نقطة واقلي وأقربه يا لكن رئيس الوزراء روبله أفري طبعاً كي أجاسمه لحبو هوي وكيانه أكرد قال جعل أكرد أبقال أكرد وحبر قدر عدو دوله أكردو نين رجع أو عد هوي السود عيي أنا جا روبلان كهيا عدار كي ودي لحبو السود عيي أنا وكلام جع عدر على الصيو لكن لحبو السود عيي سديد أيام ما أنت باش الدارات ويا هي intaas waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaan rabay ra'iisul wasaare Xamse ka garbixista mudlood iyo sida hadda inta muuqaalkan duubayo xaaladdu waa la xalinayaa aagi waa kacay waxa sayaab leh nin nabad iyo nolol ku hayay taageeradooda oo aad u taageersanaa oo mareyxaannimadu dambi ma ahan laakiin ku adadkaa idaan farmaajo aan rabin ayaa agaas meesha xafiiska lagu soo daray wiilkaas aad sawirkiisa u jeedaan horta ma aragtaan sawirkiisa ma aragtaan wiilkaas aad sawirkiisa u jeedaan nabadii nolol taageeray farmaajo taageeray nisa in dadka lagu xasuuqo taageeray agaasimo waay wiil xamar joogay oo isaga fikirkiisa ka soo horjeeda maanta inuu agaasimo la'aan ahaado cadaalad ilaahay miya cadaalad xamar miya cadaalad xamar ba waxa rabaa mudlood hadaadan ka hadlin arintan kulay wiilashaada xamar jooga ku beesala ku shaqala ku abaarooba hadaadan ka hadlin xafiiska madaxweynaha Soomaaliya xafidullah Xasan Sheekh Maxamuud marka soo qoraysaan xafidullah ka hormaray ilaahay noo xafido oday Soomaaliyeed oo Soomaalidu garowsatay inuu Soomaaliya intuu nool yahay hogaamiyaba xafiiskiisa farmaajo sidoo uga tagay shaqaalaha madaxtooyada ama daarot ha ahaadaan ama hawiyaha ahaadaan ama nooc kala ahaadaan oday Xasan sideedu ku dhaafay مدين هبل هلا جتجو هبل هلا تورو هبل قبيل كواي حفيزك في الصوماليا أنا كيمن بوه وده هبل حسب وجوها
أنا مدحوينه وفنيا أردنا كمدحوينه وصلات بتكون يا وهذا بديار نقله أبو سودو أرد أفاري ومدحوينه وجو جاي السوق نوع والباقي لسه عوين باقي لسه لكن حفيظ كان أفر قفوض إلى وقفوض وهوية اللي حقرية مركز لقته رئيس الوزراء حفيظكو يعود قيبسية صومالي و 4.5 نوع إلى عليه إن هذا أديك أهل الدين تهي ونتقوى بدن تهي ونوناكسن تهي أنا كل هذا يا الصومالي ويكدرسن تهي لكن واحد اللي هي ملكي لها عصب دكتور عبد النور ده أمو رئيس الوزراء دي بيا يا ملكي لها دتكم ما يقالان سوير كيس هرب عم بدين تصع واكا ملكي لها برت ملكي لها واكا صح ملكي لها ميا مركز نقصية مسوها نقصية رئيس الوزراء هو ما نقول ملاي ماي رئيس الوزراء إنه بديا وعرب مركز أرنتان نحر كذا محدين درب وين عليه مدلود باكهذي حدان وحلاقة قبلنا حفيز كا يهولها هوس كجرة أول بلابرنا حفيز كان مدلود ودن وجرت سدحنا عيراد نوع إسلام ومحمد عداء نقعدوا الشيء مايو يننا ارتأب قال أو أقون يرأى بعد صابت اللي قبريه يويلو جيجينا سدح لا صار لقى تورة ماشي سدح دون الراب لك يعني لابد أن هو باين الراب لك يعني ويلكا جيجينا قرن مايو مركا إن ويل أقويرة مانتا إنه حمر بسارات كويس وحفيز كريز بسارات لقبر يضل كان وقول أنت أقوير إذا أين إسر قولي من ويل نبض ينول يفهد ياسين يبختي يفرماجس ولا بشدي سربي إنه حمر من أجاسمه وكذا من أجاسم الآن وهذا دتك حمر ما أقبل دونان أنت سيدي شيء يعني والله سم والله سم والله ما أقبل يعني waxaan ogahan ku dhaaranaya ma aqbalayaan wiil agooyara agaasimo ka tag inta la dhaho in wiil mareexaan oo waliba mareexaanka oo kala sharaf badan yahay mareexaan xukunkii farmaajo diidan dalka madaxweyne xataa weligiisa ka ahaa iska agaasime laakiin xukunkii fashilmay wiil taageeray ee dhahay aniga farmaajo cid aan ma aqoonsan mana aaminsani wiil agooyar inuu booska u waayo agoorta abgaal iyo mudulud wax ay marna aqbali karaan ma وحكم وقان عن كل يرنايو موقال كان شرقرية حفيز كرئيس الوزراء اللي بالشقة عن كسو عنا يبا إلا حل عدالة ربعني عدالة لا بحدي سدل السي وإلا مدلول السي عدالة ولي بقى أنا ماشي عم كل انتو عشوركم بحيو إنا أنا كبت صدور سدل أنا وحكوين كرا أنا مدلول لا ندير النمو ولسته